meeshaas waxaan kaga dilnay ilaa 19 dhaqarqabayaashii al-shabaab ilaa dhaawacoodana meelo badan baa laga sheegayaa haddeerna waa ku sii raajoognaa meeshaasna waxaan u soo booqday jiidda hore dagaalka gudoomiyaha caasimadda Dhuusamareeb xildhibaanada maamulka Galmudug saraakiisha noocyada kala duwan alxamdulillah rabbil ilaahi baa mahadaas leh annaguna waan waday doonaa khawaarijtaas layntooda dibgan wuxuu yiri qofkii dilay iyo qofkii dilaanba waa ahlu janno waxaan ku dhiirigelinaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay khawaarijtaas la iska dhiciyo waa wax wuxuusha waa wax dalkii diinta midna aan roonayn dadkaas saaka waxay rabeen inay dad shacab meesha ku laayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baana saaka soo gaaray waa la jabiyay khawaarijtii 19 ayaa laga dhigay meesha uga tageen waad aragtaan meesha yaalaan ciidankan Ilaahay baa guuleeyay hal nin baa ka shahiiday ciidanka iyo hal qof oo shacab ah markii hore ahaayeen ayagu ay dileen intaas anaga soo gaartay Ilaahay baa ku mahadle intii dhaawacantana waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu u boogadhayo intii dhimatana shahiid waaye rasuulka sheegay oo ku sheegay duuba 2 qatalo oo qatalo